Hello, welcome to our ongoing vocabulary lesson. Today we will be learning new words in our lesson 3 to expand on our Somali vocabularies. Kusoo dhawow casharkeena aan ereyada cusub ku baranaynay. Inshallah maxaan rajeynayaa inta wax badan iga barataan. Waan casharkeena saddexaad. If you have a book and a pen near you, you can note something down. Haddaad haysid qalin iyo buug, wax waa qoran kartaa waxaan isbarayno. And I hope you will learn something from that. Book, book, boog, boog in Somali language. Pen, pen, qalin, qalin. Pencil, pencil, qalin, or qalin qoray ama qalin qoray ama qalin rasaas. Computer, 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 computer. Money, money, lacag, 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 money. Mobile phone, cell phone, telephone, telephone, telefoonka gacanta, telefoonka gacanta. Sorry for my voice. Mobile phone, cell phone. Time, time, waqti, waqti, time. School, school, school. This is the Somali one. School, W-L, or duksi. School or duksi. Job, job, shaqo, shaqo. Date, date, taariikh, taariikh, taariikh. Date. Country, country, wadan, wadan. Country, wadan. County, county, gobol, gobol, gobol ama gobolka. City, city, caasimad, caasimad. Town, town, magaalo, magaalo. Town, magaalo. Village, village, tuulo, tuulo, tuulo. Village. Doctor, doctor, dhakhtar, dhakhtar, dhakhtar. Spelling matters here. Nurse, nurse, kalkaaliso, kalkaaliso. Nurse, kalkaaliso. So our English pronunciation is the British one. So we have to pronounce nurse as nurse. Teacher, teacher, macallin, macallin. Teacher, macallin. Student, arday,
student, student. arday, arday. hospital, hospital. isbitaal, isbitaal. hospital, isbitaal. market, market. suuq, suuq. market, suuq. market, suuq. This is the end of our lesson 3. We cannot exhaust all the vocabularies in Somali language. So I hope we will be ready to learn more next lesson. cashirkeena saddexaad maanta meeshaan noogu ekaaday ama halkan ma soo wada koobi karno waxa eraye ah oo ingiriiska ku jiro oo maalinlaha la isticmaalo. insha Allah cashir kale aan wada kulmeynaa wax badanna barana rajeynaa. And so I was using the UK English, not the American English. So obvious my accent will not be the same with the American accent. So yes, maxaan dhahay aniga dhawaaqayda waa luqadda Ingiriiska oo Britain ama UK ama Ingiriiska sida u taqaaniin mooha midda Mareykanka ah. ninkii fahmayo maxaa maleynaa wuu fahmay. Soomaaligana lahjadoo leeyahay. lahjadeyda hadaa fahanday oo wax ka faa'iiday waa kaasaa. wabilaahi tawfiiq. khayran rajayna. Welcome back to my channel. Don't forget to come back for the 4th lesson.